asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waa qaarintaadii kombyuutarka barashada windows 10 ka brosom i t training center. windows 10 waxaan soo gaarnay system try wax la dhahay. system try talow muxuu yahay waa isla eegeyna wuxuu yahay la soco insha allah. System try is another name given to notification. magaca waxaa la dhahaa inuu notification waxaa loo magacaaba af soomaaliga markaad shay intaad sameysa markaad sameyso kadib lagu tuso macluumaad oo inaad shayga sameyso result. marka waxaa leedahay notification area waa meesha macluumaadka markaad internetka gasho feedback in ay website qaar wax kusoo diraan, in maaragtay google macluumaad update kusoo dira, in microsoft update samey ku dhahdo, meelaha laga arkaa loo jeeda. which we can find waxaan ka heli karnaa right side computerkaada of the window taskbar looxa u hooseysa. The system try feature different type notification uu leeyahay alert oo ah text aan lagu diro wargelina your computer like to internet connection had markuu internet ku xirayo or volume levelka meesha ay codka laga dheereeyo laga gaabiya lagu dhaca agteeda ku yaala. waayo go waxaad tegaysaa haddaad rabto setting windows and choose waxaad dooranaysaa system computerka system ka dooranaysaa kadib step waxaa leedahay system windows select notification action. you can select halkaas waxaad ku arkaysaa read which appearance waxay ku tusaysaa taskbar inaad macluumaadkaadi ka akhrin karto. marka meeshaas waxaa lagu magacaabaa runtii waxaa lagu magacaabaa windows system try. marka waan isla arki doonaa ila soco practicalka markaas sameynaya. fadlan mar walba casharka waxaa ka horeeya wax yaroo introduction ah. practicalka aada noo muhiima inaad fahanto wixii la sheegay oo itusii taabsiya ayaynu u baahan. waxaan u gudagalaynaa casharkeena system try practicalkiisa aan balansanayn. waxaan leenahay wax la riixi doonaa halkaas ama waxaad riixaysaa haddii kale halkan waxaad leedahay setting kadib waxaan tegi doonaa waxaa lagu magacaabaa halkan waxaan tegaynaa system. halkaas waxaa ku yaala system notification keligaa siin doontaa halkaas double click sii kadib waxaan ka dooranaynaa notification actions. notification action haddaa fiiriso waxaa ku yaala halkan iga tus windowskaaga ama haddii app kuu soo diray laftirkiisa itus waa meesha on y waa la damin karaa meeshaas waa meeshaas hadday daaran tahay waa helaysaa. waxaa kaloo ku yaala meesha show log notification screen inuu log yahay halkaasna ku taalaa. waxaa kaloo ku yaala noocyada markaas yeela. haddaa rabto waad dhihi kartaa hiding or hide notification present iyadana waad isticmaali kartaa intaas. marka haddii aad kaas damiso tibka lama arkayo ma fahanti. tibka halkaas kasoo bixi doono meesha waa notificationka waxaa la sheegayo kaas lama arki doono haddii off laga dhigo ya. show haddaad tiraadana appka waa ku tusaya halkaas waa halka. marka haddaan intan click siino meesha loo jeedo waa halkaas no notification cusub ma jiro. update system protecta ku yaala kulli uu ku wada yaala. marka haddii aad rabto app cannot be run this pc aa la yiri inta halka hoose waxaa ku yaalo dabcan show app notification halka hoose iga tus ya waa midkaas halkaasuu kaa tusaya show notification from this app halkaas haddii jiraan waya haddii jiraan halkaas lagaa tusaya. haddaa rabto waxaa yeeli kartaa turn system icon on off waa la dami karaa halkaas aa ka dami kartaa haddaad click siisa halkaas. waxyaalaha daaran waxaa ka mid notificationka saacadaada volume levelkaaga
networkkaaga, powerkaaga, input, locationka, access center. waa waxyaalahan halkan ku yaallo dhammaan kuwaasa loo jeedaa. dhammaan waa intaas. inta waxaa ku yaalla waa volumekaada, waa codka meesha laga dheereeya. inta waa wirelesska waaye, inta notification, inta saacad. inta meeshana ka damin karta. tusaalaan fiirinayna, waxaan daminaynaa saacadda. okay, saacadda markaan aniga hadda damiyey, saacadda markaan okay, saacadda waxaan ka dhigay halkaa haddaa fiiriso off. waan baxaynaa, waxaan tegaynaa taskbarkeyga. taskbarka haddaa fiiriso saacad ma laha, waa dansan yahay. okay, haddaa marka halkaas riixo oon ku noqdo, haddaa on dhaho, saacaddii waa la soo celiyey sida kuu muuqata. marka waxaynu u baahannahay mar kastaba casharka notificationka lagala hadlayo iyo meelaha ka daminaysa waa sidaas. waxaa la mid ah tusaale haddaan ku laabano ka soo qaad, waxaan daminayaa network. markaa hadda furta hoos waxaa ka arkaysaa network ma laha, saacaddii volume level ay ku yaalla halkaas. marka waxa yeelaa volumeka laftirkiisaan daminaa, codkii waa damiyey, saacadda waa damiyey, kulli wada damina waa ku tusaa. waa qaabka marka meelaha notificationkaaga saddexdaas waa dansayn, saddexdana halkaas kuma jiraan, waa dansayn, waxa ma laha. hadda loox hoose fiiriso, wax saaran oo notification ka ahayn ma jiro, laakiin waa soo wada daaraa kulligood. hadda wax yar kadib waxaa dhacaya fiiri. marka waa qaabka ugu fudud ee aad notification ugu samayn karto. maaragtay kulli way ku wada yaalaan, saa fiirisayba macal bateriyahaada haddaa meesha inuu soo saaro damina, kulli wada shaqeynaa. marka meeshas ayaa si sahal u samayn doontaa insha allah. waxaana waxay u baahan yihin practical, tallaabo tallaabo waxyaalaha aada samaynayso, waxyaalaha samaynaysa waxaad yeelaysa mar walba waa inaad stebiska raacda. casharkan waa casharkeena ku salaysan notification iyo maaragtay system tryga. haddaan fiirino meesha ku laabano casharkeena, hadda dib ugu laabano system, waxaa ku jira wax la dhahayo notificationka app future. app futureka app futureka wuxuu tilmaamaya dabcan waa waxyaalaha appkaaga ee ku dhex jira bahalkaaga. intaan ku jira waa wixii app ee ku dhisan computerkaaga ee lagu soo daray ama applicationa loo soo gaabay, ma fahante. marka manage waad dhihi kartaa, inta waa manage garey kartaa kulli. haddaad u baahato marka halkaasaad tegeysaa, waxaa leedahay add new user future, kusoo dar. waxyaalaha meesha yaalla kulli waa arkaysa. haddaad tiraado kusoo dar, wuu baxayaa, wuu soconaa. kabacdi waxaad arkaysaa waa igu soo daahay. wuxuu yiri, wuxuu soo qoray marka computerkan no future is installed, ma jiro waxyaalo install oo future ah hab lagu soo darayo. laakiin inta see all future historyga arkay last 7 days hadday jiraan, mana jiraan. ya marka qaabka ugu fudud ee maaragtay appkaaga futureka asagana aada yeeli karto waa kulligiis dhammaantiisba applicationadaada. haddii aada marka ku wareerto waa baxaysaa oo wax ka qaban weyso ama fahmi weyso, halkaasaad tegeysaa default, waxaad leedahay afaar riicaysaa. inta defaultka keliya ayaad arkaysaa. defaultkana waa waxa iska caadiga oo emailkaaga, mapkaaga, maaragtay photo browser editkaaga, waxyaalaha ku jiro ayuu sheegaa, ma fahanta. haddii mar walba marka aada wax ka bedesho
choose default app type, choose default app protocol iyo default app intaba midkaa rabto aad ku bedelaysaa. kasoo qaad default haddaad tira file tabkaada click siiso intii caadi default arkaysa ay ku jirta ya baagdhe gacanteeda ku dhacday. okay haddaad tiraada marka reset recommended default result soo celina kan reset dareeda waxaa soo reduce applica protocol haddii waxyaalaha protocol ku shaqeeya maapka oo kale iyo kulli sidaas uu keena. calaa kulli xaal waa qaabka ugu fudud ee appkaagana usoo dari karto. intaan casharkan cashar lamid ku kulmayn waxaa idinkaga tegay amaano allah.